بسم الله السلام عليكم ومحمد آدن إبراهيم مركل كسو دوادا كورسدين HTML la xiriirta barashada dhisidda ama samaynta website-yada. maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay oo qaadan doonaa waxa la yiraahdo HTML formatting. waana cashirkeena lixaad. slide show ahaan idinku tuso. HTML text formatting kan qaadanayna hadduu alla idmo. waxaan si qodobadan ku qaadan doonaa HTML formatting elements waxyaalaha lagu qaabeeyo lagu qurxiyo HTML-ka farta text formatting. marka elementsiyada marka waxaa kamid ah b oo bold loo soo gaabiyey oo la isticmaalo marka la rabo in farta butac laga dhigo ama mid burburan. strong oo maaragtay iyadana la isticmaalo important text loo isticmaalo qoraalka muhiimka ah. browserkun baa loogu sheegay inay muhiim tahay. browserku ogaana in qoraalkaas strong ku dhex jiro inuu wax muhiim yahay, laakiin muuqaal ahaan marka laga fiiriyo strong iyo boldiga waa isku mid labadooda. muuqaalka ma lagu kala saari kara, laakiin browserka uu kala saaro si uu kala saaro ayaa loogu kala qoraa. ayadaas italic text marka la rabo in farta la saxiixiyo oo italic laga dhigo, gaar ahaan waxaa la isticmaalaa marka hebel wuxuu yiri aad leedahay qof hadalkiisa oo aad rabtid from voice to text, yani cod hadal qof yiri marka qoraal loo bedelayo oo hadalka qofka laga soo guriyo rabo hadal ahaan in loo qoro ayaa la isticmaalaa italic inta badan. so emphasize text qoraalka asigana maaragtay la adkeenayo oo si fiican carabka loogu adkeenayo la rabo asigana emphasize textiga. waxaan kaloo qaadanaynaa mark ama market text qoraalka la calaamadeynayo la sumadeynayo sida loo sumadeeyo. small oo asigana farta ka dhigayo smaller text qoraalka yareynayo. sidoo kale deleted text qoraalka la tirtiray loo isticmaalo asigana waa qaadan doonaa. ins ama ins oo laga soo gaabiyo insert oo asigana maaragtay inserted text qoraalka dib loogu soo daray ka dhigan. shay la bedelay shayga lagu soo bedelay marka inserted. waxaan kaloo qaadanaynaa waxa la yiraahdo subscript text qoraalka maaragtay sadarka mid hoos loo dhigo. tusaale ahaan biyaha waa luqadda caadiga ah, laakiin markii oo scientific term ama method lagu qeexayo HO2 marka 2ga waxaa loo qoraa qaab hoose oo sadarka ka hooseyso, oo HO inta la qoro 2no ma lagu hor qoro, laakiin waa lagu hoos qoraa oo hoostiisa lagu qoraa. marka 2gaas marka la isticmaalayo waxaa la adeegsadaa subscript textiga. sidoo kale elementigaas la adeegsadaa. sidoo kale superscript text qoraalka asigana marka subscript laga dhigayo. subscript waxaa loola jeedaa tusaale ahaan qoraal la qoray ama buugaagta kale wada aragteen website-yada meel kastaba. shay ayaa la rabaa in maaragtay si gooni ah loo qeexo erey la rabaa in si gooni loo qeexo. ereygaas dushiisa korkiisa waxaa lagu qoraa number. tusaale ahaan number 2 kala lagu qoraa. hadday erayo badan ay yihiin marka tiradii 1 2 3 waxay rabaan ha ahaadaan numberka uu yahay baa lagu qoraa si meesha ugu hooseyso qofka markuu tago asigoo numberkii kor ku qorna tixraacayo hoos loogu sharxayo. marka taasna tan asaasa loogu isticmaalaa. intaas waa qodobada maanta mawduuca cashirka ku saabsan yahay. aan practical ugu gudagalno marka cashirkeena kan aan soo dejiyo. wixii dhan waa iska nadiifinay. meesha way noo caddahay HTML formatting kan ugu qoran. qodobka ugu horeeya hadda boldigan soo qaadanaynaa. boldi ugu horeeyay marka waxaan sameynaynaa allahumma salli ala muhammad. paragraph horta sameynaynaa ko b. b markaan soo paragraph boldiga waa dhexgelinaba toosan ula siiso binacsigana. waxaan leeyahay this text is bold. marka waan xiraa.
bold ahaan oo xira haddana waxaan xiraa paragraph ahaanta aan xiraa marka paragraphka okay okay control S aan leeyahay horta boldiga horta ka saaraha waa idin tusinaa so normal idin tusinaa ko boldiga lahaan ah si farqiga markuu وشيء عكسيس على أركتان وفهمي سامس واضحة طبعا واحد لي قنوة أوكي هذا هو بولدي هاي أوكي ما هذا هو هذا عادي وسرجينا لك سان وبولد كصوب حبده أوكي حنسمينا سوبر بولد ينقلنا B4 بولد Control S ونسيف جراي انت إيمو مركو هوري بولدي انو ختمه سو مركو واكاسا المهم هادي مركو بولدي انو انك سارات تسال اهان او باراجراف عادي ان كدغنو اوكي ديما نقرالك بولد هسكا هذا لكن برنامج كان كساره كنترول اس إنه فرع هذا كسبحان ربه وكسر فرع هذا وهذا سو مركب بولد كدكتين وإنه بتاع نقطة أما هو عيلنا هذا أوكي كنترول اس عند هاي سو هذا مركب إنه يبور بورناتا سي بولد نقطة وكاس practical ka wuxuu ku ogaan marka farta marka buurnaan aad u yeelisid ayaad isticmaalaysaa soo qodobka xiga waxaan ka dhigaynaa haddana waxaan u bedeleynaa strong qodobka labaad soo waxaan leenahay this text is important اوكي فرق وحي مهم كان لو استعمالها مرك ماشانا مرك waxaan ka dhigaynaa strong اوكي strong kana sidoo kale inta strong اوكي control S waan save gareynaa muuqaal ahaan waxba ma isbedelay hadda oo sida uu buu ahaana waa idin tusinaa kana waxa ma isbedelay important بس كبدش قرالك إريجان قري لكن مو قال هن يعني حجم بتاعنانتا وبولدين بولمدي هاي لكن براوزر كوحوجانا إن واحد مهم هاي مركا بيدا بتاعنان وبيسوق كردين لكن معنا دير هذا ما وضعته لكن تن معنا دير هذا وضعته إن قرالك سو مهم سي هاي سو مركا فرق يقول حنا تاسع هذا نحن قادنا هنا إيتاليك qoraalka oo farta la sixinayo marka italiga iidan waxa loo isticmaalaa maaragtay markii oo hadal loo bedelayo qoraalka hadalka loo bedelayo jumlo oo luqad kale inta ka socoto marka magaciisa iyo wax saas gaar ah la sheegayo kaleento ayaa la isticmaalaa italiga soo iidan la tisi aan aragno waxaan leenahay meesha strong waxaan ku bedeleynaa I okay strong أنا هاي كبدلينا أوكي أنت نحلنا هاي and this is italic control S عندها سيكتري color وإيري هولنديسة ودقمة finish أوكي italic مركواتها سافرت سدا لو سسحين أيوه هذا مدة وين حتى سسحينين عن كديجان هذا في قرالك وين يستعمل formatting كقرين هاي ayaan ka dhiganaa italic okay kaas weyn aan ka dhiganaa kaas waa jijifinaysaa geeskaas u sixinaysa waa okay haddana waxaan qaadanaynaa emphasize tan oo maaragtay hadalka lagu adkeenayo loo isticmaalayo iyadana okay tan koran ka dhiganaa
this text is normal aan leenahay. Okay, so please okay emphasize it. Okay, emphasize it. Laakiin okay, tag marka waxaan ka dhigaynaa em control s on save gray. Okay, control s emphasize it ka kii kale intuu buu egyahay oo italic loo egyahay, laakiin waa sixinaa isagan waa sidii uu sixinaa just waa laakiin hadal oo ku adkeyn ah waay carabka lagu adkeey marka la leeyahay wax carabka lagu adkeeyaa loo isticmaalaa marka ayadana waa taasaa. Okay, maxaa haddana inoo xiga aan qaadanaynaa small element. Okay, emphasize waxaa noogu xiga mark aa noogu xiga mark calaamadda noogu xigtay. So mark marka hadda waxaan sameynaynaa mark marka la dhex dhigaayo tusaale ahaan waxaan sameynaynaa okay soo dejiyo. Okay, waxaan leenahay tusaale ahaan okay waxaan iska tirtirno paragraph cusub aan sameynayna waxaan leenahay do not forget to buy milk aan leenahay marka caano. So marka milkiga marka waxaan rabnaa inaan ka dhigno shayga aan calaamadda u yeelayno markiga aan siineen maxaan leenahay marka mark aan isticmaalaynaa mark. Okay, milk aan dhex gelinayna calaamaddaas mark. Okay, so waxaan dhahnay marka soo iloobin caanaha marka do not forget to buy milk caanina soo iibisda soo iloobin. So refresh kaasa marka erey gooni ah ama erey gaar ah ayaa si gooni ah oo calaamadeysanaysa marka kaasoo kale marka waxaa la isticmaalaa mark waa highlight ayaa saaranaysa waa calaamadeysanaysa. So maxaa inoo xiga marka aan rabnaa small element haddana small element aan tageynaa. Okay, dhag kan marka waxaan leenahay tusaale ahaan okay kaas dhan aan ka saara waxaan leenahay okay this is some normal text kan qoraalka caadigan ka dhigaynaa. So qoraalkan kale inta hoose mid yar yar aan marka rabnaa inaan ka dhigno. Okay, so inta marka hadda waxaan leenahay okay so this is some smaller text. So qoraalka kale ka yaraada hadda waxba ma gelinin hadda isku mid waaye labadooda ay noqonayaan laakiin farqiga markaan sameeyno rabnaa inaan aragno. Okay, hadda kaas wuxuu ahaa h1 oo ahaa saas aan fartaas isaga waa weyn tahay. So marka kan normal text waay hadda laakiin waxaan ka dhigaynaa smaller marka si aan marka smaller uga dhigno waxaan isticmaalaynaa elementiga tag ahaa. Okay, small aan xireynaa. Okay, qoraalka dhan aan dhexda gelinaynaa. Okay, forward slash small soo xir control s. Okay, so marka fartan inay aad u yaryaraato rabnaa hadda. Okay, waa yaryaraato waan aragnaa intaas waa marka nuxurka ama ujeedka ay soo kordhinayso. So qodobka inoo xigaan fiirinayna hadda italic waan qaadana emphasize waan qaadana mark waan small waan qaadana hadda marka waxaan qaadanaynaa deleted text farta oo la tirtiro ama meesha laga saaro. So inoo soo deji anta imo. So marka waxaan leenahay tusaale intaan hadda waxaan ku bixinaynaa hadda qoraal caadi hadda qoran tusaale ahaan waxaan leenahay my favorite
my favorite color is blue aan leeyahay tusaale ahaan. So hadda okay, Control S. Okay, my favorite color is blue. So marka blue gaaro inaan inta ka bedelo aan ka dhigo yellow kala ama red. So marka maxaan suubinaa marka blue gaaro marka inaan tiro. So del aan leedahay waa dhexgelinaysaa blue eraygii aad rabtay inaad kelmad wordka aad rabtay aad dhexgelinaysaa. Okay, del okay waan dhexgeliyay marka waxaan suubinaa hadda red aan dhahaa marka Control S waan save gareeyay oo si uu soo dejiyo page-ka imo. waxaan rabaa marka inaan blue aan meesha ka masaxo gudubna aan ku bedelo. So space yar aan u dhexeynaa hadda space fiican oo dhexeysiyo. Okay, space intaan gelinaa Control S si yani blue iyo red ay u kala fogaadaan. Okay, it's done. waa qabsoontay way dhacday. So marka del idan waxaa loo isticmaalaa qaabkaas markii ereyga sidaas wax loo bedelayo. So marka del maxaa inoogu xigay inserted text marka ayaa noogu xigtay marka isigana elementigaas aan ku soo laabano meesha aan imaano. Inserted text waxaan leeyahay favorite color. Okay, waan sheegnay tuskana asilan ku sii dhaxwadeena calaamad buu gudud hoos buu siina. hadda tusaale ahaan my favorite color del blue waan gelinay marka inta redka waxaan ka sii hormarsiinayna marka ins insertiga kaas baa ka marsiinayna ins. Okay, Control S no ide waa save gareystay page-kan tagaa marka just muxuu suubinaa dilna hoos ka marsiinaa marka underline ayuu siinaa. So way fududahay ma sii cuslo. So faa'iideeda waa intaas. maxaa inoo haray marka subscript iyo superscript ayaa inoo hartay marka aan ku horumarno subscript-ga marka subscript markaan ku horumarno aan tagno waxaan sameynaa okay page-ka aan tagno waxaanu dhan marka naga saar marka waxaan leenahay this is subscripted. Okay, subscripted waan xiraa. Okay, subscripted text aan leeyahay. Okay, Control S sidana bedelo marka waxaan arkayna markaas waa kaasa marka subscripted qoraalkii oo uu sadarkii qoraal ka hooseeyo oo ka dhiga ka hoos marina. haddii aan dhan kale idin ka tuso oo website-kii W3 oo kale inta daan tagno okay page-kan wuxuu kaloo konfacada waxyaabo badan oo page-kan ugu faa'iideysan kartiin. marka maanta cashirkan waxaan ka maroonaa tusaale ahaan asiga tusaalaha biyaha oo kale inta siinaa san rajeynayo. Okay, waxaan sii dego. Okay, small waan ka soo gudubnay, mark waan ka soo gudubnay, del waan ka soo gudubnay, insert waan ka soo gudubnay, kanaan maroonaa. So marka okay waa kana meeshaan fiir marka H2 marka sida H2O marka biyaha scientific term loo sheegay HO waan ku qalday data H2O marka la dhahay marka labada sidaan hoos loo dhigayo ayaa la isticmaalaa. So marka waxaan intuu soo aadna kaliya inaan intuu siiyo qoraalada nooca la mid ah. So subscripted
so haddii aan rabo marka qoraalkan aan superscripted aan ka dhigo oo aan kii kore ka dhigana just way fududahay sigana maxaan sameynaa oo keliya meeshii bidan baa waxaan u bedelaa midda kale u bedelaa bis midda kore okay superscripted meesha datan marka waxaa waaye idan waxaan leeyahay okay superscripted so that is control S superscripted aan ka dhigay qoraalka hoos jiro unbaa hadda kor maraya midkaan hadda saan u hooseeyo unbaa kor maraya isdhan aynu qabsoonto iyadana okay waxaan rajaynayaa inuu ahaa qodobka ugu dambeeyay cashirkeena maanta ku celcelinta iyo maaragtay isku dayga unbaa waxaan lagu sameyn karaa dabcan waqti cost garaynaysaa waxaan waqti cost garaynin ama aan lagu practical garaynin oo aan lagu celcelinin laylin aan lagu sameynin meel lagu maaragtay lama gaarsiiyo meelna lagama gaaro so waan ogahay waqtiga wax walba waqti cost garayaan ani naftirkeyga diyaarinta maaragtay isku duubisti wax badan waqti ay galaayo marka dabcan qof kastana markuu baranayo sidoo kale inta ama markuu wax baraayo so everything cost tight and tight cost money laakiin hadda ana xaqiiqi waqtiga waa free oo yahay aniga maaragtay rabo hobigeyga waa inaan dadka aan wixii aan bartaan anigana aan ku sii dhex jiro cilmiga iyo maalka bixinta ay ku sii barakuwana la yiraahdaa so marka insha Allah waxaan idin rajeynaa guul goob walba iyo goor walba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.